Wararka inaga soo gaaraya degmada Afgoye ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxay sheegayaan in goordhow qarax xooggan halkaasi uu ka dhacay. Qaraxaasi ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa miino nooca dhulka lagu aaso, isla markaana waxaa lala egtay kolonyo ay la socdeen ciidamada Amisom kuwaasi oo marayay wadada aadda laanta Buru. Goobjoog ku sugnaa magaalada Afgoye ayaa inoo xaqiijiyay in qaraxa lala egtay ciidamo ka tirsan Amisom, balse aanan la ogeyn khasaaraha ka dhashay maadaama ciidanka Amisom ay rasaas ku fureen kadib markii uu qaraxa dhacay. Ilaa iyo hadda si dhab looma oga khasaaraha ka dhashay qaraxa ka dhacay gudaha degmada Afgoye ee gobolka Shabeellada Hoose, waxaana sii kordhaya qaraxyada lagu aaso wadada dhexdeeda. Qaraxan ayaa noqonaya kii saddexaad ee maanta ciidanka dowladda Soomaaliya iyo kuwa Amisom lagula egtay gobolada Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose, waxaana maanta laba qarax ay ka dhaceen duleedka magaalada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe.